islaamnimada watan AP University waa mid ka mid ah jaamacadaha Malaysia ugu waaweyn ama ugu sasareeya waxa ninkaan ma jirtaa ninkaas waxaan raadinaya ninkaas iyo Sundus dhigiso ninkaas iyo Sundus Abdulqaadir Hamdulle oo heer madar lagu magacaabo Saynab Yusuf Hashi Sundus Abdulqaadir Hamdulle oo hooyada Saynab Yusuf Hashi oo dhalatay 1 January 2001 waa ilmo yare 2001 dhalatay oo passport number watay ba oo hal 298 watay waxa raadinaya dawladda Malaysia booliska raadinaya website kala soo dhigay gala website ka oo Kuala Burgala waa markabtaas waa Sundus ayaan le hadda gabadhan daahir ma tahartiin hadda waxa way dhamaatay naga dhaashay walaalo ninkaan waa raadin laftiisa ninkaan waxay wadanka Malaysia uga baxday ayaa la yiri qofta magaca leh fake stand exit entry oo loo yaqaano U-turn iyada iyo dad kale oo badan oo caana ayaa ku baxay dowladda Malaysia la yiri waxa ay xirxirtay oo soo qabatay rag u dhashay Pakistan iyo Bangladesh oo isticmaalaya ayaa la yiri qaabka ay ku baxday gabadha Sundus Hamdul waxayna wadaa booliisku waxay wadaan baa la yiri baaritaan bay wadaan marka ninka u sameeyana waa ninkan waa ninka u sameeyay naga jabiyo qaba ninka Sundus Soomaali ma marka ninkaas u sameeyay Soomaali waa ninkaas u sameeyay Sambus family ma fake stamp ninkaan sameeyay mujida website ka waxa gashaan inta hadda ay hadlaysiin Kuala Lumpur ku qora waxa ku qoraysiin Kuala Lumpur gala page-ka booliska gala waxa ku qoraysiin Sundus Hamdulle ku qora sawirka ay soo baxay daaro YouTube al raadina dhaxar kala la galay adeero macana horta wala ku siiyo daaro gabartina ku tahay horta wixii ila kula dheeraada ani ma dadkayga xiranaya adeero macana wixii ma arkino oo xafaaftamkii way kula dheeraadeen adeero waxa ku xakaaliya ma taqaana hortina waananta inaan fiyoda ma ka dhaween hadda ay maxaa soo sheegay public ii sheeg ama gabadha Soomaaliyeed adeero macana ma ka shaqeeyo wariyan hay information ma askarta ku soo dhiibata dadku ku dhahan